bakla badan waxaa halkaas ka arkaysaa gabdhaha Soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo leh ay yihiin sababtoo ah kiisas badan oo noocaas oo kale ah baana soo maray cunuga marka uu bridge hoos lugaha keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor u soo qaadaa kiishanaade wada ha caadi uma dhali karto waa in qaliin ay ku dhashaan laakiin dadka da'da age-kaas oo dhalinyarada waxa u badan cuduradan galmada la iska qaadsiiyo ma arkaysaa ay diido waxa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin wax jira caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa caadi ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado haddii uusan ninkii gabadhii waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto ma taqaanaa shareecaduna waa u banaynaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته هودا نقل الصعوتاي وحال السوقاري حلقي برنامج كالليل ناي شو أنه هالكان سيتوسا هودا يدين كقسم مرين جرني حلقان وكاله وقتي لندن حتى ما حدي إلهي سبحانه وتعالى إلى هذا برنامج كان عاو وحنو كو إيجي دونا مهمة دا أي إنسان كوليهين دقها محايا لدقوه وحبين مهمة وكمدة إنسانك وحيالها وكشغيسو وحكو قبصدو إلهينا سبحانه وتعالى ونمعيه waxaana kaloo jeclay inaan hoosta ka xariiqo markasta oo quraanku uu ka hadlo ilaahay nimcada uu insaanka siiyey oo dhaguhu ay ka mid yihiin mar walba ilaahay dhagaha inuu ka soo hormariyo maqalka ilaa aayad quraanka kariimka mooyaane culimada sayniskuna ay noo sheegeen maanta in ilmuhu asagoo caloosha ku jira uu wax maqlo oo maqalku uu asal yahay taasina waxay daliil kale u tahay qulubta dadka ilaahay ku xiran ay ku soo dhaweynaysaa دينتان إلهي لا صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يتهي الدين حقه ولذلك إلهي لفتي سبحانه وتعالى أي أصدق نفتي أصدق كور رمية إن بدن شاكتي إنه أصدق وحمقله ورماركتي أن وكلسوني السين النبي الله موسى عليه السلام وكله إيه سيابك الله وكله حسين مهمة دقوه إيه مقلكو إنسان كوليه هذا برنامج كان عاوة أيانو كقاضي دقي دونا مهمة دقها إنسان كوليهين markasta oo barnaamijkan aanu soo hor fariisano aniga dhaqaatiirta kale iyo waliba Dr. Abshir oo caaw mar kale martino waan aad uga mahad celinayno mar walba wax cusub aan horay u qoon baan anigu shaqsi ahaan ka faa'iidaa walidaalika caaw waxaan jecelahay in idinkuna ka faa'iideysan doontaan barnaamijkan aadna ogaan doontaan waxyaalo muhiim ah oo dhagaha la xiriira intiina horay ogeedna ay maaragtay ay confirm gareynayso waxay horay ogaayeen inta kalena ay dib uga faa'iideysan doonto waxa kamid ah waxyaalaha dhaguhu ay maaragtay muhiimka ay leeyihiin waxa kamid ah maqalka oo kaliya maahan qofka miisaankiisa ama balancegiisa ayay controlaan waxaan horay u ogaa ma ahayn laakiin barnaamijkan caawa ayaanu ku ogaan doonaa haddii ilaahay yiraahdo ilmaha yarar infectionku muxuu dhagaha mar walba uga dhacaa oo dhaguhu dhacaamo u sii daayaan oo ugu badan yahay gaar ahaan xilliga qabowga uu ku dhaco oo kale oo ay duraygu hayo oo kale dadka waaweyn dhagaha maxay qaarkood u beelaan ama maqalku uga cuslaadaa maxaa waxyaalaha sababa madax xanuunka badan iyo dhagaha markay ku xanuunayaan maxay iskula socdaan waxyaalahaas iyo umuuro kale ayaanu ku eegi doonaa barnaamijkan caawa idinkuna waxaad uga qayb qaadan doontaan sidii caadiga ahaydba khadka taleefanka iyo weliba emailka a.xafid@tvuniversal.net iyo weliba aaladda twitterka oo idinku mar walba nagala qayb qaadataan waan idinkaga mahad celinaynaa waxaanu ka hadlaynaa mawduucu waa dhagahoo kaliya insha allahu tacaala haddiisan dhagaha la xiriirinin su-aashaadu fadlan walaalaha kale khadka taleefanka ha ka buuxinin balse aan soo dhaweeyo martidayda khaaska caawa waa Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo si fiican u garaysan Dr. welcome to Late Night Show aad iyo aad ayaan u dhawahay waa mahadsan tahay sida sharafta leh wanaaga ee mar walba ay soo dhaweysid Cabdi Xaafid وهاجاك دكتورة وحن جعلها إن المركه إن شاء الله تعالى بل النود المرتد أنت عن داودياش صورت السنين مهمة دا لجوه أيليهين اوكي ان sida adiga mar hore jaa uga dhawaaqday dhegta waxay qabataa maqalka kaliya maaha waxay kaloo qabataa ay aad ay u qaabilsan tahay qofka miisaaniyada ama socodka ama maxaan ku dhahaa qofka haduu raaco inuu kor u socdo ama hoos u degayo liftiga waxyaabaha qaabilsan ayay wiishka dhaham ama liftiga marka la koray inaad kor u socoto diyaaradda inaad saaran tahay in diyaaradda kor u socoto inaad hoos u soo degayso waxyaabahaas oo dhan ayay miisaanka ay kontroshaa
dhawaaqana saa u taqaanid banaanka ka imaanayana wuu kala duwan yahay. caadi ahaan dayaan ahaan aan u maqalnaa gariir, laakiin neerva ku jiro tartiib u sharxi doonaa. neervahaas ayaa qaadaya dhawaaqa oo geynaya maskaxda ayaa tarjumayso hal u fasirayso. codkaaga hadda haddaan maqlo mar kale xasuustana waa la gelinayaa. codkaaga mar labaad haddaan maqlo hadalada fasiradooda waxaad oo dhan maskaxda ayay tagayaan. marka xubintan oo dhegta ah aad ayay muhiim u tahay. anigoo jeclaan lahaa inaan bal hal aan u tusno sawirada doctor lagu soo socda aan jecelahay. tan waa dhegti waxay ku qaybsan tahay 3 qaybood ay u qaybsan tahay. haddaa fiirisid qaybta banaanka taalo ilaa iyo tubada, iyo qaybta dhexe oo ay ku jiraan laba yaryar oo maxaan ku mida la dhaho, iyo qaybta dambe sida hadda meesha wareegsan oo kale cochlea la dhahaa, iyo 3 lafood ee warwareegsan waxay dhahaan bisha oo half ah semilunar ay dhahaan. kuwaasoo isku dhegan waa gudaha macala laftaasoo ku dhegan bareenka maskaxda ayay ku dhegan tahay. haddaa aragtid bahalada cadaanka oo meesha ku dhegan waa neervaha 8aad 12 neerva jiro oo maskaxda dirita uga soo baxa. kan waa neervihii 8aad ayaa meesha dirita u tagayo oo laba u kala baxaya, halna qaybta miisaanka aadaya, halna qaybta maqalka aadaya. marka neerfayaasha shiisi waa xubnaha buluuga weeyaan, midabka buluuga cad oo ugu dambeeya. okay, kuwa dambe shiisi ugu dambeeya ayaan ka hadlayaa. qaybta dhexe ee dhegta oo dhawaaqa uu soo galo waaye. kan oo maxaan ku dhahaa pinkaha ah dhawaaqa meeshu soo gala, meesha badanaa wasaqda ay ka samaysan wax waxa la dhahay ama dhukayga uu ka samaysmo waa halkaas waaye. marka dhawaaqa uu soo baxo ayaa wuxuu ka banaanka ka imaado, wuxuu ku dhacaa bahashaas timbana la yirahdo, waa sida durbaanka oo kale. markuu ku dhaco ayuu asagana wuxuu sii garaacaa lafaha yaryar ee cad ee gudaha ku jira sii garaaca. kuwaas ayagana waxay sii garaacaan ay u tagaan cochleaha oo laftaas ah. laftaas dhexdeeda waxaa ku jira biyaha ku dhex jiro, unugyaha ku jiro. unugyadaas waxay leeyihiin cilia, ayay leeyihiin farafara ayay leeyihiin. iyagana specializato u ah oo maxaan lahaa waa kana. hadda gudaha sii tagno timbanihii aan ka bilaabaynaa teegti waxaa arkaysaa kan cad waa laftii waxay garaacaysaa balkan binkiga ah cochlea la dhaho. markay garaacdo ayaa waxaa ku jira biyo. codkii markaas dhawaaqa biyaha ayuu dhex gelayaa. neervaha ayaa qaadayo, hadhowna maskaxda ayuu tegaya. marka meesha ka bilan durbaanka mujeeda oo timbanakan buluuga ah waa microphone-kii dhegta waaye wuu soo qaadaya. nooc kasta oo dhawaaqa ayuu soo qaadaya, xataa markuu qofka hurdo. hadhow lafahaas loo gudbinaya, way garaacayaan, waxay u gudbinayaan cochleaha oo maxaan ku dhaha laftaan weyna. labada qaybood aa ujeedid, qaybta waa wareegsan oo dhinacaas ah oo waxaa la dhahaa semilunare ama bisho half ah oo kala la dhahaa. kuwaas waxay qaabilsan miisaanka socodka oo qofka bini aadanka ah. qaybtan kalena way gudbinaysaa. dhegta hadda markaa aa fiirisid oo dhinaca loo jeexo waxay leedahay oo aada muhiim u ah. haddaa aragtid marka kasoo bilowda gees aad gudaha gashid meesha dhukayda iyo wasaqda ay ka samaysato, cagaarka oo hoos sii aadayo waa doleel Eustachian tube la lahaa. tubekaas wax alla wixii wasaq iyo wax walba ayuu dhunta u gudbiyaa. marka nadiifinta ayay ka qayb qaadataa. mashaakilaad fara badan ayaa ka imaan karo, waana gudaha ayaan usii gali doonaa. marka dhegta markaa aragtid carjow ayay ka samaysan tahay, tan banaanka taalo, gudahana laf ay ka haddaad fiirisid waa wax ama dhukay oo dhegta dhub siiyey. waxay keeni kartaa inay xirto uusan qofka wax maqlin, xanuun ay u keeni kartaa, infection ay keeni kartaa. waxyaabahan waxiga la dhahayo dhegtaa soo saarta oo loogu talagalay cadaan ahaan ay usoo saartaa. maxaa la dhahaa cabdirashiid tan waxa waaye hadda ustaaki tubkaan ku tusaaye cunug yar infants ah iyo qof weyn. qofka weyn way janjartaa diritamenta dhunta tege, laakiin cunuga yar maadaama dadab ay u taallo ayaa wixii wasaq ah ma tegi karaan dhaqsi, dhunta ma tegayaan. saas daraaddeed way fadhiisanayaan. infectionka saas daraaddeed cunuga ugu badan yahay. marka qofka weyn u fiirisid way dadban tahay oo hoos u socotaa, way qulqulaysaa. tan kale cunuga immunities difaaciisa ma aha maxaan ku mid matura ama mid qaangaartay ma aha. maalin walba wuxuu bartaa jeermi cusub u bartaa. tan haddii aragtid dhegta gudaheeda timbanaha markaad tegtid, timbana wasaqaysan. timbana waa durbaankii aan kuu sheegay. gudaha markaad sii gelisid aad microscope waxaa ku arki kartaa otoscope
midka kore waa mid wasaqaysan, tan hoos waa mid nadiif ah oo durbaankii nadiif ah, haddii lagu hadlo caadi u gudbinayo dhawaaqii. kan kor laakiin dhawaaqa hadhow mashaakil u imaan kara ama xanuun u imaan kara ama infection uu keeni karaya. kan waa tusaale aan usoo qaaday timaha ku dhex yaala gudaha tubada dhexdeeda waaye, external qaybta banaanka ee tubada ah, marka aad ka tagtid dhegta banaanka waaye. waxay ayagana ka mid tahay difaacayaasha ilaahay siiye dhegta, ayay timahan ka mid yihiin. wasaqda maadaama banaanka imaanaysa ayay ka celinaysaa. dhegta gudaheeda qofka marka oo ay ku mashaakil uu ku imaado, ama qof yar ha aad cunug yariiska xanuun haddii uu qabto dhegta wuu xoqaya. qofka hadduusan wax si fiican u maqlaynin mashaakilaadka waa dhex geli karnaa, calaamad ay u tahay yaah inuu ku dhaho ama iigu celi hadalka uu ku dhaho. tan laba nooc waa in suuf aan la isticmaalin, haddii wasaq la isticmaalo. suufkan qalad waaye oo la awal la isticmaali jira, haddaa la ogaaday. waxaa ka wanaagsan in la isticmaalo maxaan ku dhahaa cleaning oo la nadiifinayo, biyo la isticmaalayo, hab ayaa soo baxay. tan waxaa la arkay mashaakil aad u weyn cunuga yariiska lagu sameynayo, suufka dhegta la gelinayo, wasaqdii ayaa gudaha kusii riixaysaa, ama derbiga ayaa qarxin kartaa, ama durbaanki ayaa qarxi karaa. marka laakiin kan dhinacan si nadiif ah ayaa loo hawaaka. haddaa ujeedid tin banihii ayay dhex martay. qofkii intuu nadiif isleeyahay xoobkii bay dilaacisay, ama hooyada ama aabbaha intuu cunuga ka nadiif isleeyahay ayuu ka dhex baxayaa. hadhow durbaankii haddaad dilaacisid dhawaaqii sidii loogu talagay ma u gudbayo. marka kana mashaakil ka mid ahaa. kana waa ujeedaa cunug oo dhegtiisa malax ka socoto, tin bana qayb yar ka qarxay oo kor ah. qofka kor oo masawirka caadiga asagana waxaan ku tusayaa neerfaha oo neerfaha maxaan ku dhahaa trigemina ayaa la dhahaa. neerfaha oo maxaan ku dhahaa ayaa mararka qaarkood neerfaha 3 qaybood u kala baxaa trigeminaha. sawirka ugu koreeyo kaas haddii neerfaha oo infection ama waxyaaba qaado wuxuu ku siinaa signal false ah oo inay dhegta xanuunayso. marka waa inaad iska hubisaa qofka markuu ku imaado dhegta ay xanuunayso ku dhahaya, neerfahaas oo dhegta agteeda soo maraya oo trigemina lagu magacaabo ayaa marmar infection jiri karo oo ku siin karo xanuun oo aan dhegtana ahayn, qofkii laakiin dheg ahaan kugu imaanaya. kaas waa mid aan usoo daawooyinkan waa daawooyinka usoo qaada. kan waa qalabkii la isticmaalayay marka qofka laga shakiyo ama mashaakil uu jiro, audio material ah qofka meesha la geliyaa, dhawaaqa lagu furaa, waa inuu batoomo taabtaa, waxuu maqli kara la arkaya. kan kalena otoscope uu qaadanaya, markaa fiirinaysid dhegta gudaheeda aa eegaysid oo inay nadiif tahay, in wasaq ku jirto, in infection uu jiro, in aad ku arkaysid. marka examyaal waaye. dad waxaa jiro ku dhasha dhegta banaanka oo yar, haddaa fiirisid gabadha ama wiilka oo dhegtiiba aana samaysnayn, gudaha wax walba waa samaysan yahin, laakiin banaankii ayagana wax qaliina lagu sameeyaa, waa loo hagaajiyaa. markii oo mashaakilku aad u badan yahay, cunuga uusan wax maqlayn ama wax aan maqlayn, qalabka oo loogu talagalay way aad u badan yihiin. mid dhegta lagu rakibo, mid dhegta korkeeda lagu rakibo ay u kala baxayaan. marka kan daawadii ayaan gaarnay. doctor waa mahadsan tahay. dhowr waxyaalood rabin kaa weydiiyo sawirada hadda aragnay. sax. hadda wadankan waxaa la isticmaala qoriga arkaysay oo xuubka dilaaciyay, suufka afku lahaa baa la isticmaalaa. anagu markaan Soomaali joogno waxaan isticmaalay kabrid baa la isticmaali jiray. kabridka inta afka la roogo sida caday oo kale, kaas la isticmaali jiray. waxa kale oo jirtay habeenkii ilmuhu markuu seexan waayo, waxa dhegta looga soo jiray subag bayl ah. subag kulul baa dhegta looga soo jiray, especially hawdka anu meeshan ka imid. waxyaalo dhibaato intee lagu waxaas keeni karaa. cabdixafiid hadaya u arkaysid qoriga ama kabriidka la isticmaalayo ama waxa aad gelinaysid tubo waaye dhexda. tubada marka waxaa samaysmay wasaqdii waad ku sii riixaysaa, soo ma bixinaysid. haddii wax yar xataa uu kuu soo raaca kabriidka ama suufka uu kuu soo raaca inaad soo bixisaa u malaysaa, laakiin waa sii riixday ilaa ay durbaankaa gaarsiisay. si fiican ayaa dhaawac u gaarsiin kartaa. tan kale meesha maxaan ku dhahaa subaga la isticmaalaya, hadda saliida la isticmaalaa, laakiin 2 dhibic wax badan laguma shubaayo. 2 dhibic ayaa lagu shubaa, olive ay dhahaan, oo nadiif ka dhigayo wasaqda ilaahay ugu talagalay. wasaqdaanaytii nadiifkeeda meesha laftirkeeda waxaa soo saarta dufanay soo saartaa. dufankaas wuu iska qulqulaa sababtoo ah wasaq fara badan ayaa dhegta gasho maalin kasta. marka haddii wax kulul dhegta lagu shubo iyo haddii wax qaboob lagu shubo, haddii wax qaboob ah dhegta lagu shubo, qofka wuu wareeraa.
dhibic qabooba marka la nadiifinayo waxaa la isticmaalaa warm jirkeen meeqa waa temperaturekiis waa 37 oo kale ama 36 oo kale biyaha ama waxyaabaha lagu nadiifinayo oo mashiinka u isticmaalaysid intaas degree oo 37 ama 40 oo kale ayaa gaarsiinaysaa sababtoo ah jirka ayay la mid tahay laakiin haddii biyo aad ugu sii kulul ama biyo qaboob aa ku shibtid qofka waxaa u keenaysaa inuu wareer ayuu u keenaysaa وحاجات دكتور أصلا قلنا قيبها كله دتك أيام فرصة سين هدي له هذا صور يعني إنك يرى من أنت يرتاح دكت وأسكج وكسعودي وأنا ينتصني رمش وعافمات سدا أو جد هدد هلبي بريس لدى عيسين ومرقان كاجيري وأنا نكرها اللي جرينا وحن جعلنا إنك وجود من خدك التلفون كإن شاء الله تعالى لكن سؤال أنا سليه هدد بدنا عاود تلفون صدري ويدينيا وأن جعلنا كهرتنا su-aashaas waxay tahay wiiggii hore halkan waxaan ka hadalnay bidaarta iyo dhibaatada ay leedahay amase sidii maxay tahay waxyaalaha keena loo fiirin lahaa dabadeedna nin baana soo wacay abshir magaciisa inuu ahaan jecelahay bashiir wuxuuna sheegay saliido inay jirto boqolaal email ayaa dunida idinkoo meelo kala duwan jooga iisoo dirteen bashiir iyo emailkii ay iisoo qoran ku eri iyo macluumaadkiisii midnaba ma helinin sidaa awgeed macluumaadaan idin siiyo ma aanan helinin bashiirna wax wara kama helinin aqoonna iskumaan lahayn oo wuxuu ka mid ahaa dadka taleefanka soo diray qof ka mid ayuu ahaa marka insha allahu tacaala haddii uuna maqlayo a.xafid@tvuniversal.net ayuu emailka noogu soo diri karaa macluumaadkiisa iyo saliidda uu sheegayo inta ka horeysana waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan isaga ka warsugno laakiin barnaamijkan arrintaas aanan caawa kaga hadlinin iyo cudur kale oo nooc kalaaba waxaanu ka hadlinaynaa dhagaha iyo xanuunada ku dhacay iyo sida looga hortago iyo daawooyinka jira waxaana insha allahu tacaala dhowaan idin kusoo maqan xayeysiin ku saabsan dr abshir iyo dhakhaatiir kaloo faro badan oo soomaaliya xarun ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada london marka qalimo soo qaata saad u qorataan afkiina hooye ku hadlayaan waxay leeyihiin dhakhaatiir cudurro kala duwan ku takhasustay oo insha allahu tacaala idinkaha qabtiri doona dhibaatooyinka aa markaa sheeganaysaan ayagoo ay dhakhaatiir kaloo ajnabina ay joogaan qofka ugu horeeya caawa khadka taleefonka assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام عبد الحفيظ soo dhowo walaalay magacaha رقيا لي دها maxaa lagu dhaha walaashay روضة rooda xaggee joogtaan rooda مانشستر soo dhowow هذه دكتورك وعليكم السلام waa kaa qaadnay tv-ga ha igala soco boliis taleefonka igala soco rooda هاي أبو soo daa دكتور waxaan rabaa hooyaday dhigta xanuunayso marka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka hooyada dhigta xanuunayso dhigtana way maxaa dhahaa qaylinaysaa hooye ma kula joogtaa iminka ha hadda way tawa fadhidaa macquul ma tahay iyada inaan toos la hadalno hay la hadal ay gar hooye halo salaamu calaykum calaykum salaam maam hooye soo dhowow saa tahay waa fiicana alxamdulilah hooyo aad iyo aad baanu kugu mahad celinaynaa inaad nagala qayb qaadatay barnaamijka hooye hayo hooyo waxaa waaye dhakhtarka waxaan weydiin lahay dheg ay xanuunayso waa ay xanuun jirto marka hore laakiin hadda ma xanuunayso way qaylinaysaa waxna kama maqlaya wax badan kama maqlaya waa hagaag hooye khadka taleefon ku jira dhakhtarkii aduu saan iskula qaadaa dhigtaan uu kuu fahmo ama macluumaad dheeraada kaaga helo doctor hayo hooyo ilaa iyo muddo intee la eg waayo hooyoy wax badan waay wax badan labaatan sano waa dhan hal dheg keliya miya hal dheg keliya way dilaacday markay dilaacday kadib ay saas noqotay okay hal dheg keliya miya ha hal dheg keliya waa okay marka dhakhaatiirta dhegaha ma fiiriyeen oo wax ma ku sameeyeen weliga hadda ka hor sacuudi carabi anoo joogo aan dhakhtar u geeyey daawooyin oo isiisii wax oo hadda saas oo ku tifjiyaan wax saas oo aaga gartana male laakiin dhicaanka waa joogsaday laakiin way qaylina wiiq ay leedahay waana wax weyna kama maqlay hooyo ha okay hooyo mashaakilkan waxaa la dhahaa tinnitus dhahan ingiriiska talyaani tinnitus waxaa nalooga dacwooday wiigii hore aniga adigaba adna waxaa la yidhi ingiriis iyo waxaa isku dartaa soomaali darkuna ingiriis iyo soomaali iyo talyaani isku dara marka naga daaya nalagu yiri marka waaye ha su-aal kalan ku weydiinana haye waxaa waaye habeenkii waa quuriya maxaa lagu sameyn karaa ha taas ayadana waa ku sheegaa laakiin horta tan hooyo aan ka jawaabo hooyo waxay qabtaa dhegta gudaheeda maadaama mashaakil ay soo martay infection uu soo maray dhacaan uu ka imaanayay ayaa gudaha meeshii haday aan kuu sheegayay cochleaha cabdixaafid
in guddi Soomaali ah ay u fadhiistaan ereyada Soomaali fara badan ay soo saaraan ereyada oo dhismaha jirka ah ayaa loo baahan yahay taas anaga waxaa jira Dr. Liibaan wuxuu sameeyay dictionary af Soomaali ah oo medical dictionary Soomaaliya kii ugu horeeyay insha Allah asaga laftiisana mar soo cabsaneen qolsa wada ka dhigto marka cochleaha qaybta gudaha ma ayaa waxa jirto unugyo ku dhex jiro unugyadaas biyo ku dhex jiraan waxay leeyihiin maxaan ku raacay cilia ama waxa la farfaray leeyihiin kuwaas ayaa damage dhaawac gaaray marka dhaawac marka uu gaaro ayaa waxa imaanaya dhawaaq iska yeeraya dhawaaqaas qofka aad u mashaakil ugu abuuraya oo maxaan ku dhahaa hatta hurdadu u diidaya marka waxa jirto daaweyn hal dhig kaliya way hada mararka qaar kood labada dhig ku dhaca cudur jiro Meniere syndrome cudur la dhaho oo kale iyo cudur kale jiro oo labada dhig ay yeerayaan qofka kaligiisana maqlaay kaligooda yeeray mararka qaar kood oo qofka hargab ku dhaco waxyaabo ku dhaco oo wax temporary ah wax iska waqti yar ah way iska jirtaa laakiin kan waa wax oo waligiis macnaa qofkaas ku soconayo waay marka dhaqaatiirta oo ENT-da waxay ku daaweeyaan maxaan ku dhahaa ani maana dhihileen ama music ama radio ama in qofka ay dhageysato shanqartaas ka soo yeeraysa iyo shanqarta banaanka la isku baabiinaya ani waxaan ku bedeli lahaa in hadii ay isticmaasho maxaan ku dhahaa sheeg maxaan ku dhahaa headphone geedka dhigta la geliyo oo radio ama wax ay isticmaal ama quraan ay dhageysato cod gaaban ay ku dhageysato tartiib saas aad loogu maamulaa tan kale waxaa jirto daaweyn sida beta-histidine daawo la dhaho oo kale oo 8 mg 3 jeer oo kale qofka la siinayo ayaa jirto oo ayadana dhawaaqaasi loogu talagalay in lagu baabi'iyo marka in la investigareeyo la baabi ay u baahan tahay gabadha qorada inta ma soo galayso qorada waxay keenaysaa sanka iyo meesha qaabilsan ay keenaysaa هوي خير الله كسيو أختار كذا للحرير إن شاء الله تعالى ونختارك كلية هاي القرآن كان دقيس إلهي سبحانه وتعالى وعاف مادن يا هوي إن شاء الله وحقاك خورض ولا ما حرير تبي نختارك سدا أو قد رضو وأنا كاجود بينا خير الله كسيو قفك يهري نسوا عاديه هوي خدك الله كحية السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام سودو ولا المقعة ولا أروح على يدها سينب على يدها مقعيقة أهلا وسهلا سينب دكتور كان waxaan rabay inaan weydiiyo walaale ay xanuunaya dhegaha dhuunta iyo sanka intaas oo iswada wata waa gartay waxaan ogtahay Saynab barnaamijku caawa dhagaha ay sanka iyo dhuunta kuma saabsana dhagaha un baan eegaynaa insha Allah taala marka wado dhagaha maxaa ka haya dhegaha waxaan ka dareemayaa xanuun badan waxaan ka dareemayaa sidii oo wax signal oo kale oo samni wax zam inay leeyihiin oo qaylinayaan xanuun badanna waan ka dareemayaa degna waxaad moodaa xoogaa markaan telefoonka ku qabto oo kale maqalkeeda inay soo daciifayso waa gartay Saynab ku jir telefoonka insha Allah maxaa la dhahaa Saynab waxa oo cun ah oo maxaan ku dhahaa allergiya sanka ha noqoto ama dhuunta ha noqoto ama dhegaha ku cunanaya ma jiraa maxaa tiraahdaa allergy xasaasiyad ma leedahay sanboor hello Saynab waa ku maqlaa sanboor ma leedahay sanboor waan leeyahay waa gartay marka waxay noqonaysaa horta xiriir ka wada dhaxeeya caadi ahaan dhuunta bare marka infection oo ciruurta oo kale uu ku dhaco xiriir ayaa ka dhaxeeya tubadii aa u jeeday oo aadaysay ama kor ka imaanaysay wasaqo soo daadinaysay ayaa buuxsamayso marka tubadaas haday buuxsanto ama ay biyo gala ama culays ay noqoto ama infection qaado dhigta sida hadda ay sheegaysay ama ha noqoto xanuun ay keeni kartaa ama ha noqoto fiiri pressure-ka cadaadiska banaanka ka imaanaya ayay dheelitirtaa wasaqda kaliya ma raacdo marka taas ayaa waxay keeni kartaa xataa in qofkii maqalkii ay si ka noqdaan marka waxaan u diri lahaa in loo sameeyo test audio material oo maqalka ah ayaa jiro in loo sameeyo oo dhegta dhuunta in laga fiiriyo x-ray raajooyin jiro in laga fiiriyo sinusitis ama infectionka ku dhaca lixda hool aan ka qabno sanka ay ku xiran yihiin in laga jeegarayo oo la saxo xagga allergiyada ay qabto Saynab maxaa intaa ku weheliya intaasa isku kay xanuunaysa hadda dhakhtarku leeyahay waxa ka wada dhaxeeya xiriir intana xanuun baan ka wada dareemayaa neerfayaashu hadda sawiraayo oo kale oo ilaa wejiga ilaa sanka ilaa dhegta saas oo kale isku haysay sawiradii
waxaas oo dhan way isku kay xanuunayaan marka dee kolba xiriir baa ka wada dhexeeya intuba xanuunku iga wada hayaa waa gartay marka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka xaggee London ay telefoonada hagaag su-aal aad u wanaagsan insha allahu tacaala qalin soo qaada adigii daawadayaasha kaleba dhawaan waxaanu soo deynaynaa waxyar kadib 10 mirir oo kale waxaanu idiin soo deynaynaa adreeska ama ciwaanka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee isbahaystay ay laga helo insha allahu tacaala saa u qorataan dabadeedna idinku aad u booqataan oo ugu tagtaan xilliga markaa munaasab idin ah ana kaaga mahad celinaa Saynab qayb qaadashada barnaamijka thank you yaa dhakhtar ANT oo kumbuleeda markaas hadaan dhakhaatiirta la soo xiriir ma leeyihiin waa lagu gudbinaya ayaa ku gudbinaya insha allah okay thank you Saynab وهاجا قد كلام كحيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سولو عمي مقعة. مقعة شريف ولا واحد جوجا لانك شو جوجا. حاجة جوجا؟ بلاك بيمبا جوجا. أهلا وسهلا صاحب. والله لو دكتورك waxaan weydiinayaa hooyadeeda ay la joogto waayeelha waxa ku soo kordhay say u joogto oo ay caadi isaga tahay waxa leedahay madaxa ay soo xanuunaya horta xanuunkeedu wuxuu ka bilowday dhegta muddo ilaa bil ku dhoway dheg ka cabanaysay labada dhagood mid ahaan kadib waxaa kusoo koray dhegtu markay xanuunto wax yar kadib waa wareereysaa markay wareertana waxay leedahay dhulka ay la soconaya waxaa laga yaabaa sariirteeda saaran dhulkeeda ku dhacdo lugaheedu waxay noqonayaan ama sida dhagax oo kale wax qori oo kale ama wax jilicsan bay noqonayaan xanuunkuna wuxuu kaga bilaabday dhagaha afar dhakhtar baan geynay afarta dhakhtarba waxaa xanuunka injirada markaa u sheegnay waxay leedahay waxay u badantay dhegta tahay dhegta markii la fiirshayna wax laga arko ma jiraan wax dhaacaan iyo qoyaan iyo waxa male iskaan baa madaxa laga saaray waxba laguma arkin marka waxaan dhakhtarka weydiinaya bal arrintaas inuu maaragtay waxga sii raaya waa hagaag shariif khad ku jir waana kaaga mahad celin qayb qaadashadaada insha allah in waxa laga yaabo dhakhtarku su'aalo kale rabo inuu ku weydiiyo waxaan filayaa in wareerkan aan ka wada hadalnay haday maxaan ku dhahaa waxaa jirta dhigta saddex qaybood ay u qaybsan tahay saankooga u soo sheegnay qayb banaanka taala qayb gudaha ah oo laftii oo gudbinaysay ee qayb gudaha ku jirto oo maxaan ku dhahaa qaabilsan balansaha iyo maqalka qaybta balansaha qaabilsan iyo qaybtaas oo dhan waxaa la isku dhahaa labyrinto marka mararka qaarkood iskaan ama waxaa rabtid saar ma arkaysid wax ma jiraan marka waxaa jiraya inflammation jiraayo oo ku dhacaya ayaa ku jiray qaybtaas ku dhacay labyrinthita la dhahaa labyrinthita marka la dhahaa qofka wareerkaas calaamadaha uu sheegayo dhan waa lagu arkaa haddii wax yar qandho ee la socoto calaamad fiican waay ama blood test dhiigga laga qaado oo la arko in white blood cellska xoogaa ay sareeyaan markaas isla markii waxaa roonaan lahayd in la siiyo maxaan ku dhahaa antibiotic daaweyn ah oo labyrinthitahaas lagu daaweynayo iyo kaniiniyaal ayaa jiro oo wareerkaas xoogaa hoos u dejinayo in la sii ay ku fiican tahay oo intiida ay la xiriiraan shariif ما نختارك مع سيف عم نفهم والله لو حنكلو ويدين لها أننا ورانا هي الصومالية جوجا oo iska caadi ah oo nin dhalinyaro ah dhowr iyo 10 jir ah wuxuu galay biyo oo ku dabaashay isagoo din dhowr iyo 10 jir ah qof caadi ah wax dhibaato aan dhaga ka qabin kadibna maqalkii baa ka tagay ninku batatan yani ha maqalkii waxba ma maqlayo ninku waa ku sii qof dhalinyaro oo kale buu noqday arrintan waxay ka bilaabatay biyo wasakhaysan oo roob daay uu galay balay uu ku dabaashay meelaan geegeynay hadda wadankii buu jiraa ninku marka tartiib maqalku uu baxay mise hal mar dhaba uu baxay ma hal mar buu baxay okay marka infection iyo dhacaan iyo wax ka imaaday ma jiraan wax allaale wax ka imaaday ma jiraan okay marka wax test aha Soomaaliya jooga hadda wixii marka awoodda meelii aan islaamin waxbaad geen kartaa waa wada geenay wax isbedel waxa safeeyay iyo xataa mar waa gaal kacay meelaha miyahayd bise ma garan karo qaliya baa lagu dayay wax isbedel ma yeelan okay tan maqal beelida ayaa laba loo kala saaraa maqal qofka hal mar oo wax dhan ay ka tagaan sida hadda walaalkeen uu sheegay iyo maqalka oo tartiib u yaraada caadi ahaan qofka markuu daadiisa ay ku darsanto tartiib uu culeysku u yaraanaya oo jirka waxa soo galayso maxaan ku dhahaa weynaan ayaa la soo dirsayso marka noocan oo kale u dhacaan waxa aad u wanaagsan in maqalku wuxuu noqon karaa laba noocna uu noqon karaa soo gudbitaankii uu soo gudbay dhawaaqa meelihii uu soo maray oo block ka jiro mashaakil ka jiro ama wuxuu noqon karaa centralkii qaybtii gudaha ahayd
oo hadda aan kuu sheegay controlaysay iyo maskaxda laftirkeeda qaybtii tarjumaada ah ayuu mashaakilka ka jiri karaa marka labada in la kala saaro ayay u fiican tahay biraa jirto oo inta la saarayo waxay leedahay sida fargeeto oo kale ah oo weyn oo lagu dhufanayo bir kale way gariire qofka marka waxaa la arkayaa in gariirkaas uu maqlayo iyo in kale marka xoogaha investigation gudaha loo galaa waxaa la ogaanaa bal gudaha in ay shaqaynayso gariirka uu maqla hadduu ku dhahay ma maqlaysaa gariirkan haddii uu haa uu ku dhaho marka tii gudaha way shaqaynaysaa marka banaanku mashaakilku uu ku jiro gadaala usoo noqonaysaa hadhow saan u sheegayna qalabkii kala duwanaa oo dhegta loo isticmaalayay mid waxaa jiro kor laga saara mid gudaha la geli sababaana loo sameeya midna gees loo geli sababaana loo sameeyaa taas kuwaas marka in loo sii kaco haddii lacala uu gudaha yahayna hadda qaliimaa soo baxay muu malaynaya in oo afrika meelaha qaarkood laga sameynayo kokleyaha gudaha ku jira laftirkiis ayaa inta bir inta lagu rakabo fiilo la geliyo ayaa lagu rakibaya kokleyaha shaqadu qaban lahaa oo ahayd gudbinta dhawaaqa asagaa la bedelaya qaar ka mid ah way goynayaan mararka qaarkood waxaa dhici karta lafihii yaraa oo durbaanka ka dambeeyay ayaa isku dhegaya ma dhaqaaqayaan oo ma garaacayaan dhawaaqi ma sameynayaan ayaga laftirkooda waa la bedelayaa oo mid kale lagu rakibaya dhawaaqi dhagdhag ay gudbinayaan waa maxaan wax makaanika oo kala waay marka qofkii kuma horjoogo alaabtii iyo wixii dhan laguma rakibin marka waxay u baahnaan lahayd xoogaa ama Kenya ha noqoto ama meel kale in bal si fiican loo baaro shariif دكتور ما تي والله عن أرن باي مهلا ضد ولا كله يسويان كان وقت هذا وعرفت إنه قف الصومالي كتجوا وتجوا ما كله ونختار عن جادو جاري كرقف كاسي أو لوسنا كروح يلا دي حتى لا يصير دكتور meel kale oo la geyn karo waxaan filayaa Ethiopia meelshii markaas asaga manaasib la asaga uu geyn karo ama visa uu heli karo in markaas meesha la geeyo ayaan kula talin lahaa laakiin meel gaal ah oo la geyn karo ma garan lahaa hadduu UK keeni karo way fiicnaan lahayd haddii la geyn lahaa waddan kale America haddii la geyn lahaa meeshii markaas manaasib u ah meesha ku hagaagan oo la geyn karo in la geeyo oo qalabkan laga helayo hagaag waxaa igu maqaalaa dhakhaatiirta Jabuuti joogta oo Soomaalida inay aad iyo aad aqoontooda u sareyso cudurrada noocan oo kale iyo kuwa kale marka loo barbar dhigo kuwa Ethiopia shariif waa mahadsantahay adii hooyo khayr baan idin rajeynaynaa khad kale oo ku xiga assalaamu calaykum halow assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullah soo dhawow wala waa dhawahay waxaa la dhahaa umu maryam baan ahay marka waa gartay oo dhagahaasaan waxaan ka haystaa dhib badan marka wadankan 2 jeer la iga qalay dhegna waxaa la yiri waxbaba iyada waxba kama qaban karnay dheheen oo waa iska sii daaye waxa la waa dhamaatay marka tii la iga qalay 2 jeer waxay dhaheen iyadu rajo ma lahan marka tan kale tan waxay dhaheen samacada iigu qoran waxa la samacadaas sho haddii kale xuma maqli doontid markaan gashadana way dhibaano inta badan ma xirto oo ilmo yar baasta oo qaylada ay dhibta maqalkayguna aad hoos u sii socdaa marka waxaan leeyahay dhiis badan baan waan wareeraa waxaa idhiba marar badan iftiinka iyo nalalkii waxaas waa idhibaan waxba isla ka dhexdhayacayaaca mar sometimes biyaha qabow kala haddaan biyo qabow ku weysayso wajiga taabsiyo waxaa meesha inaan ku dhacaaban ka baqa biyaha qabow aad bay maaragtay ay igu sameeyaan wareer badan oo dhacniina hargabka oo kale iyo qufacoo kale marka waxay ugu dhacaan waxaan dareemaa xanuun badan oo dhegahii iyo dhuuntii iyo aad u fara badan marka way la xiriiri jireen waagii hore daawooyin baa la siin jiray 6 bilood oo dhakhtar special ay arki jiray last 4 years waxay dhaheen waxba ima arkaan ilaa marka aad u xanuunsadaan biiga tagamaane marka way dhawaaqana waxay leeyihiin dhawaaq iska socdo oo aniga kaliya aan dareensano mar intaan geesiya waxaan meesha dadka kula maqlaynin oo aad u fara badan oo nooca marka waxaas oo dhan oo dhibaanaystaa marka dhakhtarkana waa si caawa ka hadlaya marka waxaas iga daaweyn kara iyo wax information aan dhakhtarka ka reeb xagee ka joogtaa ingiriiska wastigana ya xaafadahan wastigan degana ilan baana Eileen Barrow okay waa hagaag Maryam dib ma lahan insha Allah taala waxaad yeelaysaa dhakhtarka kale ku jawaabaya
laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo haddaay dhakhtarku waxyaalo igala hadlayay baa xasuusay dawaqaada ku haysa ama wareerka ma mid adigu aada wareeraysid baa mise waxa ku ag yaalla ayaa soconaya aad moodaysa inay soconayaan aniga okay waa hagaag doctor okay cabdixaafidow waxay aad iyo aad ugu badan tahay calaamadaha ay soo dhiibtay si fiican ay u qeexday cudur oo lagu magacaabo Meniere syndrome. Meniere syndrome waxa waaye waxaa ku dhacaya neerfaha oo maxaan ku dhahaa qaadayo ii sheeg ayaa degeneration waxay dhahaan burbur ayaa ku dhacaya badanaa cudurkan dhaxalna wuu noqon karaa caadi ahaanna ugu soo socda hal dhig ayaa hadda u roon oo maqalka ay isticmaalaysaa hal dhigna waxaa la dhahay already maqal awood looma laha badanaa markay dhaqaatiirta oo ENT-ga ay dhahayaan dhigtan waa u dhamaata markay dhahayaan waa marka neerfaha uu dhinto neerfihii uu waxa qaadaya maskaxda geenayay hadduu dhinto markaas dhahan dhagtaan wax ma ka qaban karno laakiin inta kale oo dhan haddaysan u sharaxaynay hadda dadku way baranayaan wax waa laga qaban karaa maxaan ku dhahaa cilmigan wax waa laga samayn karaya laakiin haddii cudurkan waa laga in meesha uu hadda oo marayo lagu joojiyo oo daaweyn iyo wax la siiyo sida ugu dhaqsaha badan ENT kale in loo gudbiyo ayay u wanaagsan tahay Meniere syndrome ayaa la lahaa marka dhakhtarkeeda inay la xiriirto baaritaan samayso hadday annaga noo imaadona si dhaqaatiir oo ENT ah oo specialisata ah ayaan si dhaqso ah ugu gudbinaynaa si looga gaaro aysan horey uga sii soconin mahadsantahay umu maryam qalin iyo warqad diyaar la aho insha allahu tacaala dhowaan adiga daawadayaasha kale waxaan ooda uga soo qaadaynaa dhakhaatiirtan soomaalida ciwaankooda iyo weliba teleefonkooda laga helo waa mahadsantahay iminkana waxaan kusoo socda xayeysiintii dhakhaatiirta meesha laga helo soomaalida daawasho wacan dhammaan baa bulshaweynta soomaalida la socodsiinaya in xarunta caafimaad ee Somali Doctors Medical Center ee ku taala Tottenham High Road ee ku dhegan masjidka Sunna loogu talagalay in dadka lagu daweeyo guud ahaanba cudurrada guud iyo cudurrada carruurta iyo cudurrada haweenka intaasi waxaa dheer in xaruntaasi ay ka howlgalaan ilaa 13 dhakhtar oo Soomaaliya ajnabi isugu jira loogu talagalay in lagaga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada laysimada tagaasida BCO-ga iyo weliba basaska iyo weliba waraaqaha kale caafimaad dadku ay u baahan yihiin meel kasta aad joogtaan bulshooy dhakhaatiirtu waxay kugu hadlayaan afkii hooyo Soomaaliga Somali Doctors Medical Center waxa kale ugu talagaleen goobtaasi gudniinka wiilasha iyo weliba dadka doonaya inay membership ka noqdaan amaba xubin buuxda xaruntaasi 150 gani qoysku sanadka oo dhan iyagoo balan u baahnay in la daweynayo iyadoo weliba qofka shakhsigaana 120 oo isku diiwaan gelin karayo yaalna moogaan meel kasta aad joogtaan intaan sheegay ka badanba inaad ka faa'iidaystaan dhakhtarada 13 kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna wixii faahfaahina taashada dib u daawato barnaamijkan marka uu hawada ka baxo website-keena la soo geliyo ayaad ka arki doontaan inta kalena waxaad kala socon doontaan xayeysiintaas 7 maalmood oo isbuuc walba 7 maalmood oo wiiga ayuu TV-ga Universal ku jira insha Allah taala dabadeedna numberka saasaad ku heli doontaan waa mahadsantihiin daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waxaa dhawaan ugu soo socda video aan jecelahay dhakhtarku inuu sharaxo balse khadka telefoonka aanu dhowr qor fursad siino assalaamu calaykum with the practitioner and the patient hello assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله سولو ولا مقعة دبعة نور ولا يا دبعة نور نمعة نور أوكي رأينا كم مقال سفيان سولو نمعة حاجة جوكتها فضل وحقاق ما حد جعش أنا أختار كويدي سو كسب سنة دقة ولا على واحد ويدين لهاي ويرك يربح لك اللاستي دقة مسجل وين هلا واي مسجل وين واحد وكريس نعم واقرتي 2 years ago buku jira last year laga qalay waxa dhiga wuxuu qaba goromis biyo ugu jira marka hadda waa laga qalay marka sanad baad ka soo wareegto marka ma hadlo hadalka marka ma saameeyna dhiga oo biyo ay ka saareen ila dhakhtarka weydiiyay horay ma hadli jiray may okay واقرتي ku yara jir khadka saddex dhigaha biyo laga saaray dhagaha laga qalay tarbiya kaga jiray mararka qaarkood waxaa jiraan calaamado iswada wato kuma xirno maxaan ku dhahaa haddii cunugaas uu ku dhashay maqalka oo yar ama uusan wax maqlaynin yaa hadduu ku dhashay hooyada way fahmi kartaa in uu wax maqli jiray kaali markay tiraahdo ama ay la hadasho ama ciyaalkii la dheelay ama way fahmi kartaa hadduu ku dhashay
isoon wax maqli jirin maxaan ku dhahaa kaas way saameynaysaa laakiin mararka qaarkood waxaa jiro mashaakilka oo biyaha galayo oo qaliinka lagu sameynayo in separate uu ka noqdo inuu cunuga hadlo marka hooyada fahmi karto bal markay tirahdo kaalay intii ka horeysa aan la qalin ama ay la hadasho ma maqli jiray asaga ma yeeli jiray hadalkeeda haye nimco walaalo markuu yaraayo kale 5 bilood markuu jiray maarta markii dhawaaqu maqlo uu soo jeesan jiray markii magaciisa ugu yeeri jiray waa gartay way maqli jiray ma garatay markuu sanad soo gaaray buu maqalka joojiyay marka ay waxay dhaheen tonsillitis uu qabay iyo adenoids waxay dhaheen maaragtay dhagaan ka sheeganay waxay dhaheen marka taqaatiir dhagaan biyo ugu jiro marka saas way laakiin markuu sanad soo joogo maqalkii dhawaaqida loo markii loo yeeray ama soundka ma maqli jirin okay marka maadaama ay qaleen oo biyihii ka saareen maxay loogu rakibi waayay qalabka caawiya inuu wax maqlo hadda wuxuu maqlaa hadda u yeertay magaciisa ama qof talaa ka soo galo markii qaliinka ku sameeyay hadda uu maqlaa laakiin hadal aan jirin ma hadlayo oo hooyo dasaba walaalihiis daso laakiin hadalkii dhalaaba jirinba waxaa jira kuwa speech therapy la dhaho groupkaasi inay la xiriirto waaye oo hadalka gooni ah wax u baraayo mar hadduu hadal maqlaayo oo jawaabayo waa calaamad aada u wanaagsan waaye marka kuwan oo speech therapistaha ah in loo gudbiyo cunuga oo ayaga ay sii wadaan arrinka inuu ay ka hadalsiyaan waayo ay nimco speech therapy hore waa loo sameeyay marka September markuu next bilaabayo insha Allah sanadka hadda ku jiro marka loo qabanayo dheel marka waa gartay marka balani leedahay waxay sameeyaan markay nursery-ga markay tagayaan oo adiga arkay ciyaalka guriga marka hore ku soo booqdaan booqashadaas koobaad assessment ay ka qaadaan waxay eegayaan ilmaha siduu u hadlaayo dhaqdhaqaaqiisa hadalkiisa activity-giisa waxaas oo folder bay gelinayaan way ka sameynayaan marka halkaasay go-aan ka qaadanayaan ilmahaas developmentigiisa siduu u yahay sidaasay sameeyaan hadhowtana folderkii waa lagu siinaa muddo kadib dawladna arkaysa marka gacantay ku haysaaba speech therapist aan hadda iskuulkii joogaan markuu iskuulka tago September dadkaas gacanta u gada insha Allah khayr baan ku rajeynaynaa insha Allah waxaan jecelnahay inaad nala soo xiriirtid isagoo caafimaad qabo hadlayo wanaag iyo khayr ku hadlayo inaanu maqalno ninka yar insha Allah taala Allah ku xifdiyo adiga insha Allah walaal thank you khadka loo ku xiga salaam alaykum عليكم السلام ورحمة الله سودو كوري هذا الوضع عبد الحسن كنت على تركه وعليكم السلام ورحمة الله سودو مقعه مريم ولا مريم حقي جوجتا مريم لندن ولا أهلا وسهلا مريم waxaan doonay dhakhtarkeena la hadlo hooyadayba waxay ka cabanaysaa wareer madaxa waxay ku leedahay waxay geeysaa jirraco dhaguhuna way qaylinayaan labaduba waxay ku leedahay wayna wareeraysaa madaxa مريم wuxuu ku yiri dhakhtarku hooyo imise jir weeyaan hooyo wax jira 50 meelaha meeqa marka mushkiladan meeqay taala waxay haysataa like adiga 6 months meelaha muddo dhow waay marka waa in ENT-da ma loo gudbiyo kuwa dhagaha qaabilsan waa u geeyna marka waxay dhaheen waxba ma garanayno ku hayaa laakiin calaamad caadi ah loo jeedo waaye haddii dhawaaq ay keligeeda dhegaha ay ka maqlayso oo mashaakil ay ku furayso mararka qaarkood hurdada xataa ka qaadi kartaa haddii wareer uu jiro maxaan ku dhahaa iyadan calaamad waaye oo dhegta gudaha in mashaakil uu ka jiro marka daawooyin way jiraan haddii kuwaas ay maxaan ku dhahaa ay wax qaban waayeen ay iska soo direen haddii London miyaa haddii London aad joogto haddii aad rugta walking clinic ay maadid waxaan kula xiriirinaynaa kuwa qolooyin si degdeg ah wax kula qabanayo ayaan kula xiriirinayn jararacada maxaa sababaya jararacada waa maskaxda waaye xaddo kacdamo jararacada kulliyeed maskaxda ayay ku xiran tahay marka neerfaha iyo waxyaabaha dhan waa isku wada xiriirin yihiin haragga timahana way xanuunayaan timaha madaxa madaxa haragiisa waxyaaba neurologicana meeshan way soo galooyiin oo adiga aad sheegaysid marka taasna waa calaamado kale oo gooni ah oo xagga maskaxda ah
okay wax infection meelada qaylada maxaa keenaya infection kaliya maaha qaylada dhegta gudaheeda qaybta gudaha ah ayaa maxaan ku dhahaa cochlear baa la yidhahaan waxaa ku jira unugyo oo leh farafara leh kuwaas ayaa waxaa waaye dhaawac gaaraya ama dhimanaya ama mashaakil imaanaya marka dhegta dhawaaqay bixinaysaa dhawaaqaas saasuu ku imaanaya maxaan ku dhahaa uu kusoo baxaya may fahantay insha allah okay maryan waa mahadsantaha khayr baan ku rajinaa adiga hooyo waa hagaag maryan from london khad kale oo ku xiga asalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم عبد الحفيد soo dhow walaalkay magaca سودو عبد الحفيد yo waxba kaama maqalno waxaan jeclahay cod kor yara qaadi adoo raalliya magaca عبد الحفيد نور يرى اللي دابو nuur xaggee joogtaa ابو لندن قال والله soo dhow walaalkay waa la socotay barnaamijka dabcan ها عبد الحفيد دكتورك waxaa weydiin rabay wiil yar oo ila dhigta laga hayaa wiil yar hee wiil yar oo ila dhigta dhanka midig laga hayaa waa gartay dhigta marka dhacaan ay soo deynay marka dhaqaatiira loo geeyo waxay dhaheen qaliin la lagu sameeyo waaye dhigta way dilaacsan tahay marka qaliinkaas hadii la sameeyo hadhow maqalkiisii wax may dhimi doontaa waa meeqa jir waaye su-aal wanaagsan weeye nuurow inankeena ma isu jiraa buu ku yidhi dhakhtarku nuur inankeena imise jir weeyaan cunuga wuxuu jiraa 21 jir abu abdu okay waa hagaag wiil weyn waaye maasha allah waxaan u maleynayaa in timbanaha uu qarxay infection uu dhacaankaas uu keenay timbanaha waa durbaankii wixii inay qarxeen marka waxay rabaan inay sameeyaan alxamaan ay meeshiisa booskiisa ku calciyaan marka haddiiba qalin ay oo la dhahay aan ku sameynaynaa oo waxaan dhihi lahaa in fursad oo fiican waa inuu ka faa'iidaysto oo cunugaas aan la dhaafsiinin 21 jirka in la geliyo wuxuu ka ululayaa nuur sidoo noo sheegayba doctore haddii la qalo qaliinkaasu dhibaato ma u keeni karaa inuusan wax maqlinin amase complication ma u keeni karaa cabdixaafid su-aal aada u muhiim waayo aniga waxaan ahay dhakhtar qaliina qaliinka marka oo la sameynayo warqada lagaa saxiixaa wax kasta oo anesthesia marka qofka la suuxinayo mashaakilaad kasta oo imaanaya markaa wax qalaysid neer baa dhaawici kartaa mashaakila imaan karo complication wuu imaan karaya complicationka oo imaanaya marka qof la qalayo laba loo kala saaraa ku isla markii adiga gacanta markaa ku haysid oo ku imaanaya dhiig bax oo kale ha noqdo ama dhaawaca gaarsiisa neerba ha noqdaan iyo kuwa gadaal ka imaanaya ayaa loo kala saaraa markaas adiga hadda sheegayso wuu imaan karaa laakiin boqolkiiba boqol hadda waxa laga hadlayo waa dad specialistika ah oo rabaan inay fursad siiyaan wiilkan 21 jir ah maxaan ku dhahaa timbanahaas ay alxamaan ay u sameeyaan maadaama infection ay dhacaan fara badan oo jiro marka anisaas daraadeed aan u dhihi lahaa ha ka faa'iidaysto waxaa leedahay ilaahay tala saara daawona raadso nuur waa kugu raacsana cabdi waa ku maqlabo khayr allah ku siiyo ebo waa mahadsan tahay waa hagaag kaasi wuxuu ahaa nuur khad kaloo ku xiga asalaamu calaykum hello hello tv-ga iska bakti walaal hello 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 asalaamu calaykum wacalaykum assalam waraxmatullah soo dhawo magaca walaal iimaan baa la yidhaahdaa waan ku salaamay adiga doctorkaba waa kaa qaadnay iimaan xaggee joogtaa walaal bristol baan kala soo hadlayaa ahlan wasahlan iimaanay walaalahaa waxaan rabay inaan ku weydiiyo doctorka su-aal waa gartay waxaan haystaa inan 4 jira waxaa ku dhacay hargab muddo badan qabtay hargabkii daraaddeed wuxuu koosgareeyay inay maqalkii hal dhig aanay waxba ka maqlin si fiican deetana waxaan geeyay dhakhtarka waxa laygu yidhi markaa wax erglu la dhaho baa helay oo ay qabtaa dhakhtarka markaan geeyeyna waxay keentay inantii xataa inani soomaaliya igula hadlin oo soomaaliga uu ku adagay hadaladii qaar aanay karayn oo anu waxaan moodi jiray dee inay mataqaanaa diidan tahay inayba soomaaliya igula hadasho laakiin erayadii aanay karayn ba hadalkii wuu ku adkaaday way fahmaysaa laakiin iguma soo celinaysa hadalkii markii horena xaaladeedu see bay ahayd marka hore caadi bay ahayd oo soomaaliya waxaan inba kulama hadli jirin wayna ku fahmaysa oo kugu soo way fahmaysay si fiican iskuulkii markay gashay waxaa u fududaaday inay ku hadasho ingiliishkii
marka dhakhtarkii markaan la xidhiidhay waxaa la yidhi ilmaha way dhici kartaa inuu hadallada aanu karinin oo stress buu noqonayaayo hadal badan baanu karino xataa dhaqankiisa isbedelaya. waa gartay. marka dhakhtarkii wuxuu igu yidhi haddana 6 bilood kadib baan eegaya. marka doctorka waxaan rabay inaan weydiiyo waxaan eer guluuga muxuu yahay some information way soo siiyeen laakiin walaalku cilmi maxaa hada ereygan eer blue ha eer gulu wax la dhaho bay yiraahdeen oo common oo ilmaha ku dhaca weeye glue eer glue waa hagaag imaanay ku yara jir khadka insha Allah taala dhakhtarku soo kugu jawaabo hadii aad doonaysid marka inaad macluumaad dheeraad siisid aad isku weydaarsataan walaalaha kale oo daawanayna ka raali noqdaan haddaan qof ku dheerayna khadka telefoonka qof kasta oo soo waca waa muhiim waa daawo qof walbana qofna ma doonin inaanu boobsiino amase aanu maaragtay xaqiisa aan siinoo dulqaato insha Allah doctor waxaa jirto haddii hadaladii ama casharkii waxyaabahan bixinaynay stacue tubekii oo dhegta kasoo baxaya ilaa dhoonta imaanaya caruurta wuxuu infectionka ugu badan yahay oo mashaakilka u imaanaya tubadaas ayaa maxaan ku dhahaa way dadab u taala ma u taalo si ma foorarto si wixii ay u socdaan ayada ayaa mararka qaarkood buuxsamayso ilaa ay buuxiso middle airka kan dhexde kaas waa kan la dhahayo guluuga ayada gabadha ay sheegayso marka kaasa mashaakilku wuxuu keenay pressureki banaanka cadaadiskii oo dhawaaqa soo galay miisaamidii ay miisaaneed inay dhunto hadda marka taasaa mashaakil u keentay laakiin af Soomaali ma ku hadlayso af Ingiriis oo fudud stress iyo kaas asna cilmi gooniha waaye hal dhig oo saas noqotayna hal dhig ka hadlaysa labada maaha maxaan ku dhahaa markaas oo kale speech therapist ha noqdaan ama psychology ha noqdaan waxa hadda soo baxa oo la jira dhaqaatiirta oo qaabilsan psychology cilmi nafsiga oo infant waxa la lahaa ciyaalka qaabilsan jiro kuwaas ayaa lala xiriiraa oo sababta language tan easy ugu tahay tan ayaga kala saari kara iman ana waxa walaal ku maqlayaa maxaad inta raacinaysaa jacashana dhakhtarka weydiisid waxaan raacinayaa waxay igu yiraahdeen waa wax ku xidhan shape-ka ilmaha madaxiisa markuu weynaado laga yaabaa inuu ka bao marka ma wax de future-ka ay wadanaya ilmihiiba ma wax ka baaya dhakhtarkana waan weydiinaya waa saxsan tahay dhaqaatiirta hadalka ay ku dhaheen way saxsan yihiin waxa hadda ana Cabdilxaafid aan u sheegay waxa waaye tubadaas markuu qofka weynaado madaxa uu weynaanayaa tubadii hadhowey positionkii dadabku taalay ay waxa aadaysaa booskii loogu talagalay dhuunta ay aade waa baaba'aya waana runtood dhaqaatiirtana way saxsan yihiin okay waa mahadsantahay doctor aad baan kugu mahad celinaa taayaro caafimaad ilaahay na tuso insha Allah mahadsantahay thank you Iman from Bristol dhawaa waxaan ugu soo socdo daawadayaal fiidiyoyaal aanu jecel lahay dhakhtarku inuu insha Allah taala noo dul maro balse aan 3 qof 4 qof waqti siiyo insha Allah taala halo qof ku xigay halo assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaad magaca Sara Xasan Sara xagee joogtaa London ahlan wa sahlan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiyaan dhakhtarka baan salaamaya wa salaam wax jirto hooyadayna xanuunsanayso ay dhagi labada dhagood ba xanuunayaan marka dhaguhu way shanqalayaan madaxa xagga kore ka dareemaysaa madax xanuun badan habeenkii ma seexan karto marka waana qof weyn oo da-ay markaa dhakhtarku maxaa talo u siinaya hooyadii sahar hooyay misay jirtaa ilaa 8 ما شاء الله dhakhtar ma loo geeyo kiri dhakhtarku ma la baaray maxay baaritaanadii yiraahdeen hadii la baaray hadaan la baarinin dhakhtarka kula hadlay insha Allah dhakhtarku dhowr bil kasta wuxuu siiyaa antibiotics mar kasta infection bay yeelanaysaa dhacaan baa gelaya wax sidaasna kama bedesho mar kasta oo dhanti way xanuunaysaa habeenkii ma seexan karta shanqad badan bay maqlaysaa inay kol xoola ka ceeyaan oo kale ay moodayaa bay leedahay imika laakiin waxaa kusoo korodhay intan dambe madax xanuun aada u badan inay habeenkii ka seexan karin waa gartay aad baa umahadsan tahay sahro ku yara jir insha Allah doctor waxaa soo noqnoqonaya infection ayaa soo noqnoqonaya Cabdixaafidow 12 nervo ee ka soo baxaya maskaxda directamente oo dirto kan isha inta imaanaya trigemina hadaan ku ugu sheegay kan sideedaad nerve vagal
gaar ahaan kuwa maskaxda caadi ugu dhow haddii infection ay qaadaan waxaa aad halis ah infectionka inuu gaaro maskaxda marka mashaakilkana wuu kasii badanayaa xanuun kaliya maxaa tahay meningitis waxa la dhahayo oo infection ku dhacayo xuubka daboolo isheeg maskaxda biyaha ku dhex jiro laba xuubaa daboolaya ayaa imaan kara ama gudaha xataa maskaxdu uu imaan kara xataa qalal ayaa imaan kara oo mashaakil fara badan imaan marka waa in la helaa sababta ay infectionku usoo noqonayo immunitydeeda difaaca maxaa ku dhacay u celin layahay antibiotic le mar walba lagu daayana antibioticada qaar ka mid ah iyo daawooyinka qaar ka mid ah waxay leeyihiin sun ay ku noqdaan dhegta laftirkeeda dhaawac ay gaarsiinayaan dadka aad u isticmaala asbrinka dhawaaqan hadda la sheegayo ayuu mashaakilkaas uu u keenaya asbrinka aad u badan oo aad loo isticmaalayo uu mushkilo leeyahay iyo daawooyinka qaar ka mid ah marka waxaan dhihi lahaa bal dhiigka laga qaado ha la fiiriyo maxaa hayo oo hoos u dhigay difaaca jirkeeda ha la baaro then markaas infection soo noqnoqonayo suusan maskaxda u gaarin ha laga hortago hagaag saaro waa maqashay dhakhtarka umalaynaya aad walaal aad baan kugu mahad celinaa oo in allah caafimaadiyo mahadsantahay qayb qaadashadaada amiin jasa allah kuma khayr ayakeeba mahadsan tahay hagaag khad kaloo ku xigay asalaamu calaykum وعليكم soo dhowo walaal magaca magacayga magacaygu cabdullaahi xagee joogtaa london soo dhowo barnaamijka waa la socota cabdullaahi waa la socda aada iyo aad adiga dhakhtarka boor marka hore waa idin salaamay calaykum salaam raxmatullah waxaa jirta nin how wadankii markuu dagaalka ka socday 91 92 madfac agteeda laga tuuray waa gartay markaa waxaa dhacday in labada dhigood aan wax ka maqli waayo ilaa iyo 3 bilood 4 bilood then xaggan aan imid wadankan aan imid maalmaha ka mid anoo nin booqanaya isbitaal jooga ayaan suuxay waa gartay anaan is-ogeyn dhigaa inaan la ahay then waxaa dhacday dhakhtarada waxay tiri dhigaha la-dahay dhakhtar dhigaa raadi waa gartay waan weeraray marka waxaa lagu sheegay dhegta midigta ah in 75% aan la ahay waa gartay ta kalena ilaa iyo 25% iyada sidoo kale marka maxaa laga qaban karaa isleeda dhakhtarka aan weydiin lahaa marka dhakhtar ma u tagtay maadaama ra'yigaas talada lagu siiyey dhakhtaraa soo baxay dhakhtaraa ku yiri marka labada dhagood saas ay kala xanuunsan yihiin ha waa okay maxaan ku dhahaa walaalkay waxaan ugu jawaabi lahaa cabdullaahi annaga dhawaaqa aan maqalno qaylada 20 ka baglaabataa hertz ya ilaa 20,000 hertz inta u dhaxayso marka haddii qoriga la tuurayo ama maxaa kalashnikovka asaga madfacuula isagoo ku soo wadaay qoriga la tuurayo 120 waaye madfac adiga qiyaas marka wuu ka sii badan yahay ilaa anagana waxaan xamili karnaa 20,000 100 markay ku gaarto dhaawac aan laga soo noqonin ayaa gaaraya nasiib uu leeyahay haddii madfacii dhaawacay ay u keeneen ayaa wuxuu keenay in mid 75 dhaawac macnaha ay noqdo midna 25 marka noocan oo kale dhaawacan oo permanent uu yahay oo wax noqdo waxa waaye kuwa aidka oo haday ay sheegaysay oo dhegaha la geliyo ayaa la isticmaalaa si aysan wax aysan u sii uga sii darin marka mashaakil aad nasiib uu leeyahay inuu dhaco oo dhakhtar uu helo hadduu dhakhtaradii dhegihii baarto la helo cilada mar hadiiba cilada la helo waa la sixi karaa marka waxaa jira qalab lagu rakibayo oo caadi ahaan uu isticmaalayo ay qalabkaasna aan kula talin lahaa in loo sameeyo cabdullaahi dhakhtarka ma wuxuu leeyahay dhakhtarka mid banaanka lagu rakabayo mise mid gudaha lagu rakabayo okay tan su'aal aad u wanaagsan waaye waxay ku xiran tahay hadba meesha dhaawaca markaas uu ka jiro dhegta 3 meelood waaye haddii dhaawaca uu yahay ilaa neerfaha tan gudaha lagu rakibaya haddii tan dhexe ay tahay ilaa tan banaanka ayaa lagu rakibayaa si dhawaaqa oo loo amplification marka ENT-da ayaga exactly ku siinaya midii ku habooneed marka wanaagga loo reebi karaa loo control karaa
wareerka waxaa lagu kontrol horta haddaad sacdid maqalka aad sacdid qalabka aad isticmaashid tartiib tartiib ayuu u yaraanayaa laakiin inyaalna way jiraan oo kuu saxaaya haddii wareerka uu zaa'id yahay intee ayuu kugu dhacaa maalintii ama bilihii intee jeer wareerka kugu dhacaa taasna way ku xiran tahay okay aad u mahadsantahay haddii aan idin imaado kale ma ii diri kartaan kaslaada maxaa le dhakhtarkayga markuu ii diray kuwan dhigaha waxay yidhahdeen annaga wax ma ka qaban karno marka arrintaasaa jirta ha annaga maxaan ku dhahaa kuwa aada u wanaagsan oo si degdega insha allah ayaa lagula xiriirin karaa haddii fursad aa heshid oo aada noo timaadid waa mahadsantihiin abdullaahi khayr allah ku siiyo ilaahina caafimaad ha ku siiyo adiga iyo asxaabta kaleba waa hagaag doctor waa maxay sawirka imika shaashada saaran oo dadweynuhu daawanaya okay kan waxa waa dhegtii oo qaybta oo banaanka hadda ka imaanay tubadii waaye meesha ay qoriga dadka gelinayeen oo wasaqda kaasno hadda waa timbanihii meesha durbaanka ah dhawaaqa saana u gelaya marka uu dhaqaajiyo oo dhaqaaqo maxaan ku rahaa timbanaha ama durbaanka lafahaasiti yar oo saddexdaa isku dhegan oo dhaqaajina ayagana waxay sii garaacayaan maxaan ku dhahaa cochleaha buluuga ah ayay dhaqaajinayaan gariirkaas ay gariirinayaan ayaa dhawaaq loo bedelayaa nerva ku dhegan nervihii ayaa qaadayo oo geynaya maskaxda qaybta la geeyana way tarjumaysaa ama wixii dhawaaqi hoosdan waxaa ku yaala oo ka baxaya waa tubada istaaki tubka la dhahayo waaye oo u sameynaya miisaan pressureka cadaadiska kasoo galaya halkan iyo cadaadiska hoos ayay miisaamaysaa tubada aan kuu sheegayay oo cunuga yariiska day ee ka haleysnaa ee la sheegayay habkan ayuu dhawaaqa u dhacaa saan exactly habka uu dhawaaqo markay soo gasho dayaanka uu soo galo ama dhawaaqa uu soo galo tubooyin wuxuu dhaqaajinaya lafahaas waxay sii taabanayaan laftaas cochleaha la dhaho buluuga ah taasna waxaa ku xiran nervihiina wuxuu sii gudbinayaa codku gudbinayaa isla buluuga saddexda dhinac oo wareega ah mujeda hadda signalka saas ayuu u gudbayaa neerfaha loo gudbinayaa dhawaaqaas oo dhan waxaan oo dhan hadhow waxaa fasirayo oo dhawaaq ka dhigayo oo kale saarsaarayo hadal ka dhigayo waa maskaxda qaybta communicationka oo parietalka ayaa gudbinaysa marka habka oo usoo galayo habkan waaye dhegta doleelkaasa ku yaala meeshaana wasaq gasha meesha caawatan aan ugu socdo oo aada muhiimku ah waxa waaye wasaqda meeshaan dhegtan tubadan ka dhex samaysanta in aan dadka aan loo isticmaalin qori iyo in mashiin ayaa jiro oo lagu nadiifiyo ayaa jira halka waa ka maskaxdiyaa loo gudbinaa qaybta maskaxda loo gudbiya ayaa tarjumayso oo ka dhigayso dhawaaq inaan kula hadlayo iyo hadalka micnihiis maskaxda samaysanayso laakiin waxaan oo kale oo dhan oo dhacayan waa mechanismo habka ay u dhacayaan maqalka waayo doctor aad baa umahadsantaha khayr allah ku siiyo waxaa igu soo dhacday fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin glory to allah the best create waa hagaag khad kaloo ku xiga asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magaca waxaa ahay umu khaalid xagee joogtaa london umu khaalid barnaamijka waa la socotaa waa la socdaa laakiin ana waxaa rabay inaan weydiiyo dhuunta possible ma tahay su-aal dhagaha noo soo hormaray haddaa awoodid hadhowtana taada haddaan waqti walna waa ka jawaabeynaa umu khaalid ha may maqashay ha waa ku maqlay laakiin dhagaha ma hayo laakiin waxaa rabay dhuunta iyo saqibta habta cuntada loola qaa inaan weydiiyo hagaag waxaan jeclahay insha allahu tacaala barnaamijyadana kale arrimahaas oga qeyb qaadatid khayr allah ku siiya caafimaadna allah ku siiya kaaga mahad celinaya qeyb qaadashadaada umu khaalid from london khad kaloo ku xiga asalaamu calaykum hallo salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow walaal waa dhawahay walaalo waxay xanuunayaan labada dhagood maxay ku xanuunaysa labada dhagood labada dhagood ha magacaagi muxuu ah walaalay fawsiyo waa gartay fawsi xaggee joogtaa london waa gartay soo daa dhagaha ay xanuuno fawsiya si fiican kuuma maqalno meeshii horead joogtay kusoo yaro noqon balad waxaan ku iri kenya marla iga soo dhaqay dhagaha markadiima laga maraa meesha la igu dhaqay markadakistana waa xanuuna markii xanuunana marka doctor ma fahamti dhegta waa lasoo dhaqay haddana mar kasta haddana mar kasta xanuuna imaada okay
intee joogtaa marka london London joogaa dhegta wax wasaqi wax ma ka imaadaan may waxa kama imaada marka ay dhaqan wax sida wasaqo imaado waxa marka sabay marka ma la fiiriyo wasaq ma ku jirtaa dhegta ma laga jeegaray way ka jeegaray laakiin waa in marka ay leeyihiin la qabto u baahan tahay maxaa u baahan tahay in laga hadlo u baahan ha dad waxaa jiro maxaan ku dhahaa dhegta derbiga tubadii aad waxay usoo saaraan dufan dufankooda zaa'id ah dadka qaarkood dadkan qaarna waa iska dhexdhexaad ayada waxay u badan tahay marka dufan zaa'id ay soo saaraysaa dufanka zaa'idka ay soo saarta wasaqdii banaanka ka timaado unugyadii dhintay iyo timaha ayaa waaksiga ka samaysma ama dhulkayda ka samaysanto taasna waxay ayaa mar walba samaysmaysa saas daraaddeed ay u dhahayaan mar walba nadiifisa u baahan tahay oo waxaa soo galay marka in la nadiifiyo marka inaysan qori ku nadiifin horta qori inaysan isticmaalin tan kale hadday isticmaali kartona olive bahashay dhahaan laba dhibcood oo kale ha laba dhibcood maalintii 3 jeer ama 2 jeer ay ku shubto way qaboojinaysaa dhegta haddii bahashaas ay jirtana automatically kaligeed ayaa tartiib ay iska soo qulqulaysaa haddii ay wax zaa'id ay jirtana oo macnaha uu samaysmayona annaga agteena waxaa laga helaa mashiin insha allah waa loo nadiifinayaa waxaana la siinayaa daawo xoogaa yaraysa oo dufankan tirada badan ay soo saaraysa yaraysa ayaa loo qoraya fawziya khayr allah ku siiyo dhakhtarku wuxuu ku yidhi taladiisaas waa taas ah haddii aad doonaysa inaan annagu dhakhaatiir ahaan soomaali ka ahaan ku nadiifsanana insha allahu tacaala taleefonkeena iyo adereeskeena qorana soo booqo daawona waa kuu qorinaa waana mahadsan tahay hayaba waa mahadsantahay thank you you're welcome waa hagaag khad kale oo ku xiga asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhow walaalo magacaa محمد قال لي دهولان. magacaad wanaagsan baa leedahay xaggee joogtaa waxaan joogaa Milton Keynes. Milton Keynes ها والله. soo dhow cami barnaamijka la socotaa ها والله صفح ما la socdo والله. soo daa su-aashaada waa maxay والله waxaa jirta dhagteeda maalin sanadkan gudihiisa waxaa ku arkay dheecaan markaa dhakhtarka u tagana waxa uu igu yiri dhagta ku baran tahay markii dhagtii barteena waxaan isku arkay jirka maalinta maqaarka markii aan taabto dheecaanka aan ku taabto korkeeda inay tahay laakiin cambaar oo kale waa hagaag ya dhagtana way barartaa cambaarna way yeelataa hal dheg miya ya hal dheg keliya hal dheg keliya way dhagta maaragtay midigtaa wey ha cambaar oo banaanka ahaa cambaar banaanka ah iyo maaragtay korka maaragtay dhagta korkeeda ha 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 waxa cabaa soo arkaa maaragtay dhagtooda maaragtay qof walba waa dareemaya inay dhagtay bararan tahay oo dhegta tan maqaarka banaanka ah maqaarka banaanka ah okay okay wuxuu okay walaal waxaa qabtaa xasaasiya oo maxaan ku dhahaa dhinacaas ah ayaa qabtaa waxaa jira daawooyinka oo maxaan ku dhahaa cortison la dhahaa hadaa garan leed ama bomatooyin iyo haddii gb-ga u tagta uu kuu soo qoray wax ma jiraan waxay soo qoreen imitation oo 30 gram ha haye ma marisay waa mariyey bishan laakiin way iga babaaday laakiin haddaad ka joojiyo waa bararaysaa oo sii bararaysaa waana cambaartii oo kale dhegta yeelanaysaa haddana ha okay waxay u wanaagsan waxaa u wanaagsanaan lahayd in si fiican maxaan ku dhahaa blood test dhiiga laga qaadi lahaa immunity difaaciisa wixii si fiican loo fiirin lahaa maadaama la daaweeyey hadda soo noqonaysana in si fiican loo daaweeyo hal mar waxaan ay ka dhamaadaan ayaan aan dhihi lahaa hadduu imaado waa ka caawin lahayn insha allah maxamed waa mahadsanta doctor aad baa umahadsanta walaalkii thank you ka qayb qaadashadaada allah ku caafiyo waa hagaag khad kale ku xiga asalaamu calaykum hallo ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سولو ولا المقعة ولا هوي Soomaaliyada la yiraahdaa adiga iyo dhakhtarkaba waa idin salaamay waa gartay xagee dunida ka joogtaa hooyo Soomaaliyeed Birmingham ahlan wasahlan walaal waa ka qaaday marka dhakhtarka walaal waxaan rabay inaan weydiiyo gabar yar oo aan dhalay oo 10 sano jirta dhagta laga haayaa marka dhagtaa dilaacday wasaq waan ku aragnay 2 jeer GP-gaan geynay waa gartay daawo yar oo 7 beri lagu dhibcinayo u soo qoray way fiicnaataa haddana waa kusoo noqotaa markii dambe wuxuu noo gudbiyey dhakhtarka ilmaha waxay dhaheen marka dhagteeda ayaa xoogkaa dilaacay waa gartay marka waxay dhaheen sometimes ilmaha 12 sano intuusan gaarin bay isxiraysaa haddii kale operation yar bay u baahan tahay
marka waxaan rabay dhakhtarka talo inuu iga siiyo. hadda marka ma dilaacsan tahay way dilaacsan tahay haa 12 ayna jirtaa maya hadda 10 sano jirtaa. okay okay maxaan ku dhahaa runteed waaye maadaama caruurta infection fara badan uu jiro xuubka timbanaha gurbaanta oo kala badanaa marka infection wax yar uu ku dhaco way dilaacdaa ama way jeexantaa infectionkaas oo soo noqnoqonaya mashaakil keenaya laakiin ilaaha amarkiisa haddana waa isxiree laakiin qof weyn hadduu ku dhaco si ay isku xirto waa adag tahay marka xag ilaahiyan ayaaba ilaahay u difaacay caruurta oo meesha dhab mar walba waa soo xirmaysaa mar walba waxaan ay ku dhacaan haddii maxaan ku dhahaa mararka qaarkood dad qaaraa jiro ama ciyaal qaaraa jiro oo xag mashaakil nooc kale ah jiro ama unugyadooda ha noqoto haddii ay xirmi weyso markaas operation yar ay sameeyaan way xiraan marka kaas oo kale waa lagu sameyn karaa oo waa loo xiri karaa. hooyo Soomaaliyeed waan maqlaa fiiri abba wax kale ku weydiinaa ma marna waxay dhahdaa hooy dhagta waxba kama maqlaayo. okay haddii dilaacina weli wuu jiraa dilaac wuu jiraa cabdixaafid hadda mekanismaha ama telefishinka waxaan u tusayn waxay ahayd haddii tambanikadii amba uusan jirin oo meel daleel uu ku yaalo hawadii intee gale iska dhex galaysaa hawadii meesha galaysaa baresharkii iyo banaankii wixii ma jiraan marka waxaa la rabaa markay xiran tahay lafihii gadaal yeelay ayay garaacayaan kuwaasa iyagana waxay iska intay garaacaan waxay koklaya geedkii lahayay oo maqalkii ahaa ayay u gudbinayaan hadda marka kaas daraadeed ayaa keenaysa in uu maqalka uu yaraado ama uu eber noqdo taas laakiin haddii la xiro hadhow hawadii waxay ku dhacaysaa timbanahi lafihii uu garaacsiinaya hadhow waa wixii dhawaaqa caadiya loo maqlaya. hooyo Soomaaliyeed waa mahadsantihiin walaal khayr Allah idin siiyo. آمين آمين تاسو كلام كورجينا هذه تجربة إن شاء الله خير الله كسي هو يسمى عليه from Birmingham خد كلام كحيل السلام عليكم. عليكم السلام. سودو ولا المقعة؟ هو يسمى رياضة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سودو أنا حاجات دنيا ذيك الجوكتا. لندن. برنامج كنا شعبتها هو يسمى عليه. ها ولا سعودة دقها. محد جعش أنا بختارك ويديسي. أنا جعلها دقها أنا كجرنا هاي. مركز دقها هو إقلالين. واقفت. وقال يعني تن أو مدكت سفي عن وحوق من مغلو واقرت إلا إمسي وحنا سعودين مرك هذا وحنا إلى لبسنا إلى 6 سنوات اختار أنت جيت حتى دجال الجلية السيان واقرت مرك وحباب ما إسكت فاهمين دكتور qalabka oo dhegta la geliyo oo wax lagu maqlay ayay ku siiyeen mana maxaa ma iska bixisa marka ma isticmaalaysido ما استعمالي haddii dhakhtarkii ku siiyey oo lagu yiri isticmaal oo aad isticmaalin natiijada rabtay ma helaysid Soomahan ma dhegta xooga waa qadhigi waa labada dhigood buu qalalan yihiin marka waxa is leedahay qalaylka iyo maqal la'aanta ayaa isku xiran marka waxa maqalka mida xooga aad wax uga maqlin mid kale waa fiican tahay laakiin labaduba way qalalan yihiin laakiin mid aan aad wax uga maqlin aad u qalalan okay walaal sabab ma jirta u diidaysid qalabka inaad isticmaashid way sabab aan u diiday ma jirta dhagtay markay xooga bariyo ka shaqeystay ayna qalalan tahay waxna si fiican aan waxba uga diray waxaan isdhahay meeshan cirbadan dheer bay dhagta ka sii muddaa اوكي واكو فاهمه في waxaan irbadan waxba mashaakilku ma keenayaan dhaqaatiirta ku qor wadad aad wax u soo bartay oo ku soo daalay oo yaqaanaan oo ku soo xulay marka xogaa ina aamintido adigana aadan yaa u wanaagsanaan lahayd oo ay isticmaashay dadan isticmaalin waxa si soconayso maqal yaridii way si kordhaysaa marka waxa uu ku wanaagsan dhib baa kugu ahaato in aan niyada siisid oo qalabkaaga iska isticmaashid si aan dhegtaada aysan weli hoos aysan ugu sii aadin ama aysan uga sii darin ma wayba qalalan yihiin badhaga dhanba dhexdooda dhukay male waa qalayl hadday qalalan yihiin waxaa isticmaali kartaa olive ama oil ayaa 2 dhibcood ku shubi kartaa si ya saliid ma oliyada saliidan olive oil ayaa 2 dhibcood isticmaali kartaa oo ku qoyi kartaa qoyaan leh hadaa rabtid laakiin ha joojinin maxaan ku dhahaa inaad isticmaashid qalabkii dhaqaatiirta ay qoreen wax kale ma jiraan isticmaal walaal in si aysan mashaakilku uusan u badan
amaasintahay hooyo Soomaaliyeed khayr Allah ku siiyo waxaan soo xasuustaan ku qoslay adiga kuma qoslayn insha Allah taala saas oo ogow khayr Allah ku siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ballan ku siiyo waa hagaag qof kale ku xiga salaamu calaykum haye qof ku xiga salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaalkay magaca muusa leera muusa ha soo dhow muusa xagee joogtaa suudan barnaamijku waa la socotay barnaamijku waa la socdaa soo dhow walaalkay waa dhowahay nig ayaa qaylinayso si fiican waa gartay marka dhiga ay qaylinayso muddo 4 sano ah marka waxay ugu daran tahay marka aan ay dhacdo inaan diyaarad raaco oo kalantood dhigahu way aamusaan ilaa ay muddo oo 10 saacadood oo 12 saacadood maqalku aad ciif ugu yahay qofku inaa codka kor uu qaado si qof dhugood oo la hadla noqonaysa marka waa dhigta ilaa marka 2 saac kadib way deynaa in xarunto laakiin waxaa ugu qaylo shanqar way shanqaraysaa ilaa hadda way qaylinaysaa qaylada ma joojisa habeen maar wata qaylada waana mid dego midiga dhakhtar waa tagay waa firfiriyeen waxaan ku aragna malahan wasaqna ma jirto waxaan ku aragna malahan qaylada waa iska caadi marka qayladaas marka dhakhtarka rabta wax weeyso hurdada ma ka haleynaysaa hurdada xoogaa ma ka qase maya waxba hurdada qasamayso okay maxaan ku dhahaa waa tinnitus ay dhahaan tinnitus waa dhawaaqa oo asaga uu maqlaayo hal dhig uu ka maqlaayo ha noqoto pressurkii oo eustachiada ha jiro ama cochleaha gudihiisa mashaakil ha ka jiraan waxaa jiro beta-statin kaniini beta-statin la dhahayo ama kaniiniyo oo xoogaa dhawaaqan yareeya wax ma ku siin miyaa ma waxba layma siin marka dhinaca dhigta xigsanaya quun ayaan ku leeyahay maxaa ku leedahay quun xogay wax baran xaggeeda gudaha dhinaceeda quun iga xanuuna dhegta banaankeeda ma nabar ku yaala ma gudaha ma nabarta ma dhuunta haa dhuunta qanjirada haa dhuunta okay kaas ENT-ga dhaqaatiirta ma is aragteen dhuunta ma kaa fiiriyeen dhegta ma arkeen dhegta waa fiiriyeen marka waa iska fiicantay tiri marka fiiri walaal dhawaaqan hal dheg keliya aa ka maqlaysid mashaakilaa jiro oo ah tinnitus ay dhahaan ingiriiska haddii oon maxaan ku dhahaa mararka qaarkood haddii cod aad furtid oo banaanka ah wuu baabi'inaya codka banaanka ama raadi wax yar ana gaabisid ama wax uun aad dhegaysatid wuu ku baaba'aya tan kaloo la samayn karo waa kaniiniyaala jiro oo yareynaya sida beta-statin kaniini 8 miligram oo kale hadduu qaato maalintii way yareynayaan ilaa beriyooda ayay baabi'inayaan oo yareynayaan intii waxa ay zaa'idi lahayn hadda taladaas ayaan siin lahaa ya Musa okay pressure waa qaba dhigkarka ma keena dhibaatadaas ma keeni karaa dhegkarka mararka qaarkood labada dhegooda yeera dhawaaqana wuu ka duwan yahay dhawaaq nooc kala ah waaye wuu keeni karaa laakiin tinnitus oo dhawaaqan oo caadiga ah ma aha madaxoo qofka aada u xanuuno ii sheeg maxaan ku dhahaa inuu madax dhan buuq oo kale uu ku yeero ayaa u imaanaya markuu dhigkar uu jiro laakiin kan aad sheegayso waa hal dhig wax specifica sheegaysaa oo dhawaaqayso ayaa ka hadlaysa kaas ma keeni karo ama saas uma yaalo calaamad uma aha dhigkar inuu taas keliya keeno Musa waa ku maqlaa okay marka khayr Allah ku siiyo saaxiib waqti badan baan ku siinay okay waa ma Allah ku caafimaadiyo saaxiib waa hagaag khad kale ku xiga السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سولو ولا المقعة؟ عبد الحفيظ واكو سلامي أم سمية اللي هذا ولا سولو أم سمية حاجات دون ذيك الجوكتار. ليتا ولا أهلا وسهلا. ولا لو دكتورك waxaa weydiin lahaa muddo badan baan dhakhtarka ka daba noqonay muddo 6 sano ah. Waa gartay. mana dhagaha xanuun baa iga haysta waliba dhagta midig bay u badan tahay. Iskaanna waa la iga saaray walaal. iskaanku wuxuu sheegayaa inaanan waxba qabinin dhagihii wuxuu leeyahay labada dhagood way fiican yihiin waa gartay at the same time ana xanuun baan dareemayaa mar kasta madax wareer igu haya haddaan taleefanka gacanta oo kale maba isticmaalaba haddaan qabtana immediately waa inaan taleefanka damiyo waa gartay marka walaalow dhibkaas ay haysto marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maadaama ayagii leeyihiin dhagahaagu way fiican yihiin ana xanuun aan dareemayo marka olyo levelka hadda aad ka hadlayseenna waa la ii qoray
caadi midda dhagaha lagu shubana waa la ii qoray waxnana kuma fiicnaado marka insha allah intaasaan ku weydiin lahaa walaalkayna aan u sheegi lahaa adigana waa mahadsan tahay walaal ku yara jiro musumaya si aad adiga dhakhtarku u wada qaybsataan insha allah musumaya weli marka xanuunkiyaa jiro xanuunkii baa hayo labada dheg miyaa midda midig bay u badan tahay okay ayagana CT scanki waxba way ka waayeen okay dhawaaqna ma laha may dhawaaq ma laha laakiin markii maaragta hadda mararka aroosyada la tago kale markii durbaanka la tumaayo buuqa aad baan ugu dhibtoonaya madaxu ii xanuunaya bes waxay noqonay meeshii marka inaan ka dheeraado ama aan iskagaba tago TV-ga kale mararka qaarkood wuu idhibaa laakiin madax wareer joogtaa baan mararka qaarkood igu sameynaya swimming poolka oo kale markaan galo habeennimadaas waxaa laga yaabaa culays inuu isoo koro okay waa gartay maxaan ku dhahaa waxaa aada u wanaagsanaan lahayd inkastoo ay ladies ay joogto in dhaqsi lala xidhiiriyo mararka qaarkood kuwa oo maxaan ku dhahaa ENT-ga in laga wareegsado kuwa kale oo ENT ah in loo wareegsado oo loo tago oo mashaakilka loo sheego second opinion oo kale inay qaadato aan dhihi lahaa marka mashaakilka weli wuu taagan yahay wax kasta ay samaysay CT scan iyo waxyaabihii la sameeyay waxba waa laga waayay marka second opinion qaado oo ENT kale ha la aado okay إن شاء الله ولا آدي هذا وبعد جزاكم الله خير عبد الحفيظ أتنوك سلام أبو إن شاء الله خير بكورجي حقاق أنت أسوأ كلام كورجينا ومصمية أذيك تايري إن شاء الله تعالى كلين إلينا وعافمد إن شاء الله ولا تقوى ربي يذكر دافن السلام عليكم أدي أدو ما سنتها وحقاق إن شاء الله تعالى حلقة فوق كلام فرصة سينينا ودبنا ونسوق بين برنامج كان وحنا يدين كم هذا علمنا قيم غير الشدين إينا تلفون تي في إسكاب اختيسان أو ستوصل أنه إسكو مقالينه أو حلا وما مقشة أنا كجود مني إذا مايلستون خير بدل الله ينسيه قف كلام كحية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحتى قف كيودن بيعاو برنامج كان يلقي بقاضنية كاجم هذا علمنا ما قاعد حاجة سيجوبته. ولا الهوي الصومالي هذه دكتورك وأنا سلامي. وصلوا. سأشا قبل وحواي ويلي راد عليه أو شلت نجريه. And the way he had ear infection أقول دعي couple of times. أقول دعي. ear infection like دعي infection أقول دعي. أكو مقلهاي. مين مقشة؟ سواء. marka dhakhtarka dhowr jeer geeyay antibiotic u soo qoreen marka wuu isticmaalay marka way u fiicnaaday after like couple of mucamal bil ka bacdi sidii same time uu ku soo laabtay infectionkii waa geeyay marka waxay dheen egg glue qaba okay marka dhakhtarka weyn oo dhagaheena u gudbiyeen dhakhtarka weyn magna dhakhtarka wuxuu dhahay markuu fiiriyay dhagihiisa glue ku jiro asaga he will clear out kiligiisa iska soo bixin karaa we don't need to do nothing for him like intuu sanka xirto sidoo intuu balloon buufinaayo ha sameeyo in the morning mis maalintii dhowr jeer marka gluegi will clear out isku sameynaya okay agartay aad baa mahadsantahay wado okay marka waa sameynay nothing helped كبعد 6 months كبعد ينقابلين واحد هن دجها عنق minor ear loss كودعي مركا ear أيدا وحرنا. وقرتي ولالي رحل هو أصحاب نوصل إن شاء الله تعالى برنامج وقتي أنا قاعد عي سؤال هذا نوع دارت هاي اختركي هذه أنا عبارة شيء استعمل جعلان لها نمبر كأمين كسوع عذي كسوع علي برنامج كسوع كوبينا طبعا هذه اخترك التلفون كوضع هذا خير الله كسي. Okay, so you want me to give you my number, Marka? No. Don't give your number on the air. Same number so in 2 minutes, 3 minutes time. طبعا اخترك كقبنا Okay. وكلها الله إن شاء الله تعالى. هذا أم حسن. هاي دكتور وقتي أنت سعاو نوجيه أدي بنكو مهد علنية غير شغل البرنامج كان أي برنامج ذيك الله كان كبه هذه الأخاتير تكلموا. فرسمه وحوي عبد الرشيد الرشكة أو أصدقوا تلاقوا بحيي. ama markuu yaraa asagu yiri dhagta waxa la iga shubi jiray saliid macsar oo soo hadalka u dhigay dhanka kalena waxaan caawiyay maxamed saciid oo saxaafi iyo waliba cali naaji barnaamijkan waxa idin soo saaray anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac waxaan jecelahay ogeysiis muhiima inaan idinla qaybsado haddii allaha awood dale uu yiraahdo jalla jalaaluhu habeenka isniinta soo socota barnaamijka arrimaha bulshada
ee 10 o'clock ka bixi doona tv-ga universal sida caadiga ee london time feedkii ah arrin muhiim ah oo qalbi kasta oo soomaaliya dareen ku sameynaysa ayaanu jeclaan inaan idiin soo bandhigno arrintaas ma doonay inaan ka hor dhaco laakiin ahal iyo qaraabo u sheega 10 o'clock monday night haddii alla yiraahdo 18 bisha ayaa noo ballana iyo tv-ga universal inta ka horeysa taqwada ilaahay midnimo asalaamu calaykum waraxmatullah